maalinta ololaha doorashada ee dhoolatuska murashaxiinta xisbiga UCID taageerayaashoodu ku soo bandhigeen magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ayaa maanta si ballaaran looga xusay guud ahaanba degmooyinka, tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolkani Gabiley iyadoo ay murashaxiintu u baxeen magaalooyinka Arabsiyo, Togwa Jaale iyo magaalada Gabiley. Mujaahid Cali Gurey oo ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee xisbiga UCID ayaa hadallo doora oo kaga warramayo ganacsiga iyo mushkiladaha waqtigan xukuumadan ka taagan deegaanada Togwa Jaale iyo Gabiley. Waxa uu ka jeediyay magaalada Togwa Jaale oo ka tirsan gobolkani Gabiley. Mujaahid Cali Gurey oo ka hadlaya arrimaha ganacsiga iyo siyaasadda waxa kamid ah hadaladiisii. laakiin 22 musharax ee UCID uga sharaxani waxay kaga duwan yihiin musharaxiin badan. waxay u badan yihiin niman dhalinyaro ah oo mutacalimiin ah oo ay ka go'an tahay inay horumarka gobolkan wax ka qabtaan. halkan waxaa jooga qolada ama xubnaha ka tirsan murashaxiinta ee reer Wajaale taageerada badan ku haysta. waxaan idin leeyahay waxay doonayaan inay wax ka beddelaan Wajaale maanta horta halka ay maraysaa iyo dhaqaalaha ay leedahay iyo ganacsiga ka jira iyo sida ay tahay isma laha. waxaa ka muuqata inaan loo dadaalin oo waxa ka soo baxa iyo waxa laga abaabulo aan dib loogu celinin Wajaale. anigu waxaan xusuusanahay 1990kii markii dagaalku socday baan maalin maalmaha ka mid ah halkan imid. waxa ka taagnaa oo dhulka ka sarreeyey waxaa jiray masaajid. hal qof oo bini'aadmiyi ma joogin, xoolana ma joogin, wax doog ah mooye wax kalena may lahayn. maanta waxaa og tihiin in xukuumadda wasiirrada ku jira ay fadhiilaa yihiin oy hadhiyo habeen galaabaxayaan Gabiley iyo Wajaale. waxaasoo dhammi waxaa weeye waxay saluugeen musharaxiintii ka sharaxnayd xisbiyadooda. waxay intaa ka shaqaynayaan inay bari furaan midnimada iyo wadajirka xubnahan 22 ah ee ka sharaxan xisbiga UCID. haddaa u hiilisaan waxaan hubaa inay idiin hiilin doonaan. haddaa u hiilisaan waxaan hubaa inay wax ka beddeli karaan horumarka gobolka Gabiley. war ma u hiilinaysaan oo codkiinna ma siinaysaan? war ma u hiilinaysaan oo codkiinna ma siinaysaan? iyaguna ballan waxaannu idinku qaadannaa inay idiin hiiliyaan. dhinaca kalena musharaxiinta xisbiga UCID uga sharaxan gobolka Gabiley oo aan maanta u kala hadhin dhoolatuska ololaha doorashada golayaasha deegaanka oo ay ku qaadeen guud ahaanba xafiisyadooda isla markaana taageerayaashoodu isugu soo baxeen xafiisyada ay ku leeyihiin gobolka Gabiley kadib markii maalintii shalayto la joojiyay wareeggan labaad ee dhoolatuska tartanka doorashada golayaasha deegaanka in la isugu soo baxo fagaaraha khayriyada magaalada Arabsiyo. waxaa subaxdii hore isu soo bax ballaaran oo dhoolatusa ku sameeyay labada murashax ee Cabdiruus Cabdilaahi Sheedaal iyo Cumar Muuse Cali. labada murashax oo dhoolatus ballaaran sameeyay isla markaana gaadiid tiro badan isa soo dabageliyay kuwaas oo dhinaca magaalada Gabiley u soo galbiyay wafdiga xisbiga UCID ee uga yimid dhinaca magaalada Hargeysa. murashaxiinta oo la hadlayay taageerayaashoodu waxa ay sheegeen inay uga mahad celinayaan isu soo baxan ballaaran isla markaana waxay u soo bandhigeen barnaamijkooda waxqabadka arrimaha bulshada iyo isbeddelka ay doonayaan inay ku sameeyaan golihii hore ee deegaanka. dhinaca kalena murashax Amiin Cumar Cabdi oo ka mid ah murashaxiinta xisbiga UCID uga sharaxan gobolkani Gabiley ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Arabsiyo halkaasoo taageerayaashiisu ku qaabileen xafiis uu ku leeyahay magaalada Arabsiyo. murashax Amiin Cumar Cabdi oo la hadlay dadweynaha taageerayaashiisa ee ku soo dhaweeyay degmada Arabsiyo ayaa sheegay in uu wax ka qaban doono arrimaha bulshada iyo adeegyada aasaasiga ah horumarka gobolka iyo dhinacyo badan. isagoo xusay in aanu waqtiyadii horena ka marnayn
waxqabadyada arrimaha bulshada isla markaana uu si mutadawacnimo uga qayb qaadan jiray dhismaha cisbitaalada iyo meelaha dadka